bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan jimco wanaagsan daawadeel ku soo dhowaada channelka wararka Soomaalida waa 5 bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah golaha wasiirada oo ansixiyay heshiis cusub oo dhexmaray dawladda federaalka iyo shirkadda Fayfur oo gacanta ku haysa garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho Somaliland oo digniin adag u dirtay dawladda federaalka sidoo kalena baaq u dirtay beesha caalamka madaxweynaha Puntland oo xeer madaxweyne ku baabi'iyay mid kamid ah hay'adaha ugu muhiimsan maamulka Puntland ujeedka oo aan xog buuxdaan idinkaga hayno ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qaramada midoobay oo ka hadashay duqeyn loo geystay tahriibiyaal ku sugan dalka Liibiya iyo codsir ah oo laga duubay generaalkii ka dambeeyay inqilaabkii dhicisoobay ka dhacay dalka Itoobiya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyeen oo halkan soo gelino markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan golaha wasiirada ayaa ansixiyay heshiis cusub oo dhexmaray dawladda federaalka iyo shirkadda Fayfur oo gacanta ku haysa garoonka aadan cad shirka golaha wasiirada uu gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa lagu ansixiyay heshiiska cusub ee dhexmaray dawladda federaalka iyo shirkadda Fayfur ee gacanta ku haysa garoonka caalamiga aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho heshiiska golaha ay u soo gudbisay wasaaradda duulista hawada ayaa cod aqlabiyad leh lagu meelmariyay shirka ay golaha yeesheen ayaa sidoo kale lagu ansixiyay hindise sharciyeedka notaayada dadweynaha iyo hindise sharciyeedka qareenada Soomaaliya ay u soo gudbisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa hambalyo bogaadin taageeray iyo duco isugu daray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo howlwadeenada la shaqeynaya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug u jooga dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleed Galmudug oo loo dhan yahay dhinaca kalena Somaliland ayaa digniin adag u dirtay dawladda federaalka baaqna u jeedisay beesha caalamka shirka golaha wasiirada Somaliland oo gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa fariin adag loogu diray mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada ayaa sheegay in dawladda federaalka ay mar walba ku foogan tahay dagaal joogto ay ku wadaan dalka Somaliland taas oo muujinaysa cadaawadda iyo colaadda ay u hayaan shacabka Somaliland war murtiyeed ka soo baxay shirkii golaha wasiirada Somaliland ayaa waxa uu dhignaa sida tan xukuumadda Somaliland waxay beesha caalamka ugu baaqaysaa dal aan awoodin doorasho dadweyne oo caalamka u dhisay dawlado badan oo fashilmay maanta joogtana villa Soomaaliya aan Muqdisho meelna u dhaafi karin inaan lala barbardhigi karin jamhuuriyadda Somaliland oo ay ku jirto dimuqraadiyad kala dambeyn iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah ayna ka qabsoomeen lix doorasho adduun weynuhuna ka maragacayo inay Somaliland ka go'an tahay iskaashiga horumarka iyo xasiloonida adduunka haddaba jamhuuriyadda Somaliland waxay mar walba diyaar u tahay inay fagaaro caalami ah loogu garnaqo maamulka xamar balse taa waxa burisay shirkii Kenya ay ka baaqdeen beesha caalamkuna goobjoog ka ahayd dawladda Somaliland waxay ka digaysaa in maamulka Muqdisho khatar amni daro iyo qalalaaso horle ka abuurto mandaqida geeska Afrika oo leh sooyaal taariikh colaadeed oo dheer ugu dambeyntii golaha wasiirada waxa uu shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland ku baraarujinaya inay u diyaar garoobaan difaacidda qarankooda weli waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee channelka wararka Soomaalida markana Puntland madaxweynaha Puntland ayaa xeer madaxweyne ku baabi'iyay mid kamid ah hay'adaha ugu muhiimsan maamulka Puntland ujeedka oo xog buuxdaan idinkaga haynayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dane ayaa xeer madaxweyne ku baabi'iyay hay'adii biyaha tamarta korontada iyo kheyraadka dabiiciga ee maamulka Puntland go'aanka madaxweynaha ayaa waxa ansixiyay golaha wasiirada maamulka Puntland sidoo kale xeer kale oo madaxweynuhu soo saaray waxa hay'adii macdanta iyo shidaalka laga dhigay wax kamid ah waaxyaha wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee Puntland sidoo kale waxa la aasaasay wakaaladda korontada maamulka Puntland labadaasi wakaaladood oo ay meel mariyeen golaha wasiirada waxay siyaasad ahaan hoos tagayaan wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee dawladda Puntland
dastuurka oo awalba hoostagaya madaxtooyada waxaa loo wareejiyay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxaana magacii wasaaradda laga dhigay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka. Isbedelada la sameeyay waxaa loo gudbiyay golaha wasiirada oo ansixiyay. Dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa ka hadashay duqeyn loo geystay tahriibayaal ku sugnaa dalka Liibiya. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaalada xarun ay ku jireen dad tahriibayaal oo la duqeeyay dhawaan ay rasaas ku fureen iyadoo tahriibayaashan ay ka carareen duqeynta ka socotay xaruntii ay ku xirnaayeen. Ugu yaraan 60 ka mid ah dadkani ayaa geeriyooday halka 77 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Hase yeeshee ilaalada xarunta ayaa beeniyay inay rasaas ku fureen dadkii ku jiray xaruntaasi. Xafiiska OJA ay ku leedahay dalka Liibiya ayaa sheegay inay jiraan warbixino sheegaya in qaar ka mid ah qaxootiga iyo tahriibayaasha ku jiray xaruntaasi ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ilaalada. Ugu yaraan 500 oo ruux ayaa weli ku jirta xarunta Tejera iyadoo aysan jirin dadaalo loogaga kaxeynaya xaruntaasi dadka ku jira. Tahriibayaal tiradooda lagu sheegay ilaa 60,000 ayaa ku jira xeryo ku yaala dalka Liibiya. Hase ahaatee qaramada midoobay ayaa hore uga digtay in dalka Liibiya uusan ahayn wadan xasiloon waxaana ay dalabtay in la sii daayo. Ugu dambeyntiina codsiga oo laga duubay generaalkii ka dambeeyay inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Liibiya. Warbaahinta dowladda deegaanka Amxaarada ayaa shaacisay codsiga oo laga duubay generaalkii loo saariyay inuu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi. Inqilaab dhicisoobay ayaa 22 bishan June sanadka 2019 ka dhacay dalka Itoobiya. Inqilaabkaas oo lagu dilay madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha deegaanka Amxaarada iyo abaanduulaha guud ee ciidamada Itoobiya. Inqilaabkaasi oo deegaanka Amxaarada ka bilowday ayay dowladda Itoobiya ku tilmaamtay mid lala dhacsanaa nidaamka dastuuriga ee dalka Itoobiya ka jira lagu afduubayo waxa sida ay dowladda sheegtay. Haddaba falkaasi oo dowladda ku tilmaamtay inqilaab ay dadka qaar ku tilmaameen shirqool dil oo madaxda dowladda ka tirsan loo geystay iyadoo si weyn la isugu khilaafsan yahay cidda weerarkaasi ka dambeysay. Inkastoo ay dowladda Itoobiya sheegtay xoogag oo horkacaya Generaal Asimbo Sige ay afgambigaasi sameeyeen. Maareeyaha guud ee warbaahinta deegaanka Amxaarada Muleqin Sataye oo wareysi siiyay Amxara TV waxa uu sheegay maalinta Sabtida uu afgambiga dhici doono in subaxii hore uu la soo xiriiray Generaal Asimbo Tiske waxaana uu sheegay ayuu yiri howl ayaan kaaga baahanahay inaad qabato marka halkeed joogta. Waxaan u sheegay inaan xafiiskayga joogo wuxuuna igu yiri aniga ayaa kula soo hadli doono inta aan kala soo hadlaya xafiiska ha ka bixin. Ilaa 9 fiidnimo ayaan xafiiska ku sugayay kadib waxaa ii soo dhacay taleefan waxaana taleefanka ii soo diray jaranaanka waxaana taleefanka la iigu sheegay fariin aad u adag oo dhageysigeeda iyo fulinteedaba ay aad u adkeed ayuu yiri generaalka. Waxa uu taleefanka iigu sheegay in madaxda ugu sareysa deegaanka iyo xabsiga deegaanka Amxaarada ka arrimiya ADB tallaabo laga qaaday si rabitaanka shacabka loo fuliyo. Anigana waxaan caado u lahaa taleefankayga cid kasta oo iga soo wacda inaan codkiisa duubo ayuu intaasi raaciyay Muleqin Sataye. Masar Muleqin Sataye waxa uu sheegay wadahadalka isaga iyo generaalka dhexmaray inuu u duuban yahay markii ugu horeysana uu la wadaagay warbaahinta gaar ahaan telefishinka Amxaarada wuxuuna toos TV-ga uga maqashiyay waxay Asimbo isdhaheen codka jaranaanka oo af Soomaali lagu turjumay hoos ka dhageyso. Marka fariinta janalka iga soo gaartay argagax ayay igu abuurtay cid aan wax weydiiyo iyo cid aan la xiriirana waan garawaaye. Waxaan isku dayay inaan madaxda deegaanka la xiriiro midkoodna taleefankooda ma shaqaynayo. Anigana waxaa marnaba ku fikirin inaan fariintaasi ka sii daayo warbaahinta maadaama aan qiyaasi karo wax ka dhalan karo. Kadib waxaan la xiriiray madaxa warbaahinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Masar Abiy Megosa Telehman maadaama uu ahaa mas'uulka aan wada shaqeyno wuxuuna mas'uulka u xaqiijiyay inuu afgambi dhacay madaxweynihii deegaanka Amxaarada iyo mas'uuliyiin kale la dilay. Wuxuuna si kooban iigu sheegay inaan idaacadaha deegaanka oo dhan hawada ka saaro. Waxa aad igu adkaatay in fariintaasi la wadaaga shaqaalaha xafiiska marka intii aan idaacadaha hawada ka saari lahaa waxaan go'aansaday maadaama dad la laayay inaan barnaamijyada caadiga ah joojino oo hees fariin ah tacsi xambaarsan sidaas ayaan yeelay. Ciidamada qaranka waxaan ka dalbaday inay ciidamo ammaanka idaacadaha iyo shaqaalahooda ilaaliya ay noo soo diraan kadib taliska ciidanka Baxardaar ayaa ciidamo degdeg ah noogu soo diray. Ugu dambeyntii dowladda dhexe ayaa TV-geeda ka sheegtay inuu dalka afgambi dhicisoobay ka dhacay anaguna warbixintaas ayaan sii baahinay. Maxaa dhacay? Masar Abiy Ahmed ayaa sheegay in taliyaha ciidamada ay soo weerareen qolo uu ku tilmaamay calooshood u shaqeystayaal.
waxa uu sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah saraakiisha Amxaarada la laayay xilli ay shir ku jireen, waxaana uu sheegay in saaxiibadooda ay laayeen. Afhayeenka Masar Abiy Ahmed Magoshi Telhan ayaa goorsii horeysay sheegay in qolyihii afgambiga soo abaabulay ay doonayeen inay xilka ka tuuraan Ambishio Mekonnen oo ah madaxweynaha gobolka Amxaarada, waxaana uu intaasi ku daray inay socdaan dadaalo lagu qabqabanayo. War qoraal oo ka soo baxay xisbiga xukunka gobolka Amxaarada ayaa qalalaasaha dhacay ku eedeeyay taliyihii hore ee ammaanka Masar Abiy markuu xukunka qabtay uu jeelka ka sii daayay. Goobjooge ku sugan Baxardaar ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in israsaaseynta ay ugu yaraan 4 saacadood qaadatay. Marka hore waxaan u maleynayay xaalad iska caadi ah, balse markii dambe waxaan maqlay dhawaqa hubka culus, ayuu yiri. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga intaa.